shirka wada tashiga doorashooyinka iyo dhamaystirka heshiiskii sanadeed 3 Muqdisho September 17 2020 warmurtiyeed shir ay isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah oo uu gudoominayo madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo uu gudoominayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna ka soo qayb galeen kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Guuleed madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed madaxweynaha Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waale iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish shirkaasi wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho intii u dhaxaysay 13 iyo 17 bishan aan ku jirno ee September 2020 shirka waxa uu daba socday kulamo isdaba joog ahaa oo ka soo bilowmay Samareeb 1 oo ay isugu yimaadeen madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo Puntland Jubbaland Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo ka dhacay Samareeb 2 oo uu ka dhashay aanidhaadee shirkii Samareeb 2 oo ay wada tashi ku yeesheen madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo gobolka Banaadir oo la xiriiray sidii dalka doorasho waqtigeeda ku qabsoonta oo ay uga dhici lahayd waxaa xusid mudan in shirka Muqdisho uu dhamaystir u yahay heshiiskii Samareeb 3 shir madaxeedkan inta uu socday waxaa la isla gorfeeyay xaaladda siyaasadeed amni iyo bulsho ee ku hareeraysan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka federaaliga ah iyo tan madaxweynaha taas oo ku dhacda waqtigeeda si waafaqsan heshiiskii Samareeb haddaba iyadoo taas laga ambaqaadayo waxay madaxdu ku dul shaqeeyeen heshiiskii ka soo baxay Samareeb 3 falanqayn dheer kadib iyaga oo dhowraya midnimada dalka iyo wadajirkiisa tixgelinayana xaaladaha amniga iyo siyaasadeed ee dalka ka jira loona qaban lahaa doorasho xilligeeda ku dhacda waxay isla qaateen qodobadan soo socda qodobka koowaad in dowladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah kaas oo kaashanaya guddi doorasho oo heer dowlad goboleed ah in deegaanada doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka ah lagu asteeyo 2 magaalo oo caasimadaha gobolada uu ku dhisan yahay dowlad goboleed kasta in tirada ergooyinka xildhibaan walba u codaynaya ay noqdaan 101 ergo oo matalaya beesha wadaagta kursigaas in xulista ergada isla kaashan doonaan odayaasha dhaqanka bulshada rayidka ah iyo dowlad goboleedka in qoondada haweenka ee 30% ah la ilaaliyo in baarlamaanka heer dowlad goboleed ay dooran doonaan xildhibaanada aqalka sare in xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland ay soo doortaan ergo matasha oo wadajir ah in doorashada xildhibaanada labada aqal ee Somaliland ay ka dhacdo magaalada caasimadda ee Muqdisho qorshaha doorashooyinka dalku waxa uu bilaabi doonaa
haddii ilaahay yidhaahdo 1 November 2020. in sugidda amniga doorashooyinka ay ka wada shaqeeyaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah. heshiiskan siyaasadeed waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka federaalka si ay u meel mariyaan. madaxdu waxay adkeynayaan in xorriyadda hadalku ay tahay lama taabtaan sida ku cad dastuurka ku-meelgaarka ah iyo xeerka saxaafadda ee dalka. sidaas darteed waa in warbaahinta fursad loo siiyaa in ay si xor ah u tabiso goobaha ay codbixintu ka dhacayso, lagana fogaadaa wax walba oo ka hor istaagi kara gudashada mas-uuliyadda kaga aadan doorashooyinka. shirku waxa uu u mahad celinayaa madaxda iyo bulshada dowladda Galmudug sida ay u martigeliyeen shirkii taariikhiga ahaa ee Samareeb 1, Samareeb 2 iyo Samareeb diiran ee ay ku soo dhoweeyeen. waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo hogaaminta ku dhisan isku haynta dalka ee uu muujiyey muddadii wadahadalladu socdeen, isagoo xoogga saaray in wadajir iyo wada ogol lagu dhammeeyo arrimaha doorashooyinka ee dalka. ugu dambeyntii, shirku waxa uu bogaadinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ee ay ka geysanayso dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada Soomaaliya. dhammaan intaas ayuu ku dhammaaday sida uu qorayo heshiiskanina waxaa la horgeyn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo baarlamaanka federaalka ah si uu u meel mariyo. waa mahadsantihiin.